shirkan oo amiga sanadkii mar isugu yimaadaan madaxda ururada Soomaaliyeed iyagu ka jira wadanka Netherland kuna baahaysan dalada EFSAN ayaa had iyo jeer waxa looga doodaa wixii sanadkaasi u qabsoomay wixii ka qaldamay u baahan inay dib isaga saxaan hadba maamulka talada ururkaasi gacanta ku haya waxaana sidoo kale shirkaasi looga hadlaa dhaqaale ururkaasi soo galay sidii loo maareeyay dhaqaalahaasi gudoomiyaha dalada EFSAN Xuseen Qadiib oo isagu ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu faahfaahiyay sida ay dagaal ugu galeen inay wax badan ka qabtaan horumarinta iyo isku xirka arrimaha bulshada Soomaaliyeed ku nool wadanka Netherland wuxuuna dhinaca kale sheegay inay adag tahay ka shaqaynta maamul ay ku mideysayeen ummadda Soomaaliyeed ku wada nool wadanka Netherland hadana sidaas ay tahay inay u dhabar adeegeen isaga iyo saaxiibadiisa kale inay ka shaqeeyaan danaha ummadda Soomaaliyeed wuxuuna hadalkiisa sidoo kale uu dul dhigay inay dhici karto qalad ka dhacay isaga iyo xubnaha kale ee ururkaasi kula jira laakiin beddelkeeda uu ka dalbanayo ummadda Soomaaliyeed inaysan u qabsanin qaladka ay sameeyeen laakiin ay saxaan si aysan mar dambe qaladkaas u dhicin inkastoo Soomaalida ay urur badan leeyihiin marka loo fiiriyo inta ka dhisan wadankan yar ee Holland hadana sida ka muuqata shirkan waxay dhinaca kale ka mideysan yihiin sida u yeelan lahaayeen hadaf guud oo ku aadan ayaha ummadda Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Netherland iyo sida loo difaaci lahaa wax kasta oo la soo gudbanaada ummadda Soomaaliyeed waxaana shirkan soconaya labada cisho si weyn looga hadlay sidii loo xoojin lahaa iska warqabka Soomaalida iyo la xisaabtanka cid kasta oo madax ka noqoto hoggaanka dalada Soomaalida ay ku mideysan yihiin marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan EFSAN madaxa dalada EFSAN Xuseen Qadiib iyo xubnaha kale uu hogaamiyo ayaa muddo yar xilkan hayay waxayna wax badan ka bedeleen kala daadsanaantii hore uu ku shaqayn jirtay dalada EFSAN ee maamulkii iyaga ka horeeyay anaga EFSAN adeegan ka nahay EFSAN waxaan rabnaa wixii aan ku wada tashanay sida aan soo calaanjinay inaan maanta idin soo hordhigno aan dhahno wixii aan maalintaas la joognay aan wada qoranay aan ku wada sheekaysanay waa kana sidaanana loo soo diyaariyay sidaanana EFSAN maanta ka bacdi ku soconaysa oo aan wada xisaabtano muhiim ah inaad inteena aan ururada iyo ummadda u adeegayso inaad kulligeen saaxiibo noqono laakiin muhiimadda waxay tahay oo central inoo ah oo aniga adiga ugu gudisanahay ninkan kale oo meeshaan joogo danta guud ee Soomaalida ay Soomaalinimada central noo tahay aan kala faa'iideysano marka laga soo tago ka hadalka dhibaatada ummadda Soomaaliyeed haysta iyo sida ay daladana diyaar ugu tahay inay wax ka qabato ayaa dhinaca kale waxa lagu soo bandhigay shirkaasi dhaqaalihii sanadkii tagay iyo kan imika soconaya loogu talagalay inay ku shaqeyso dalada EFSAN waxaana shaahan halkaas ugu soo bandhigay madaxa laanta dhaqaalaha dalada EFSAN Mahad Saciid Xaaji wuxuuna Mahad si furan dadweynaha halkaasi fadhiyo ugu sheegay inay weydiin karaan su'aal kasta oo ku saabsan sida uu dhaqaalahaasi u maareeyay waxaana taasi sheegay inay durbadiiba su'aalo badan laga weydiiyo dadweynaha halkaasi fadhiyo dhaqaalaha sidoo u soo bandhigay kuwaasi oo sheegay inaysan wali si buuxda u helin faahfaahin ku aadan dhaqaalahaasi sidii loo maareeyay I think tan umaleyn ma inay su'aal badan keenso because 2010 hadda muu dhamaan okay come on buugaad kunta ka daafaysid 2010 wuxuu dhamaadaa marka xadid okay marka projectiga 2010 anaga hadda nagu dhamaan hadda ka dareemi kartaa galaashida inaan lacagta dhamaan because wasaaradda waxaan weydiisanay ama ay ogashahay 2 sanadood wax isku haysanaa fiiqi wax la yiraahdo inaan marka dhexda 2 sano aan sameyn karno isqaafi inaan dhexda ku socon karo lacagta isticmaali karo marka 2000 hadda office ku xaniisay inaad image inaad ka haystaan ururka soo socdo ma ahana waxaan idin sameynaa hal mar inuu accountant-igu idin soo daabaco markuu sanadku dhamaado ah heshaaneen lacagta xagee aaday xaq ma ku baxday waxa soo dhan heshaaneen fund accountant haddii ay noqoto oo baahataan aad dhageyso waxaan u baahnahay details halkan kale waxa ku jira waxyaalo runtii privacy oo ka soo personal cost oo kale this home privacy waa dhexdiina waa ka samaysan kartaa nin team auditing camal oo ka oo ila laaster soo raadi no so bad warbixin naga soo si diyaar wax kasta everything sent xagu ku baxay jawaabta igaas isku soo wada duubay shirkan oo isagu socday muddo 2 cisho ah ayaa wuxuu ku soo dhamaaday baaq ku aadan in ummadda Soomaaliyeed ka wada shaqeeyaan wadajirkooda sanadka xigana la isugu yimaado sidan oo kale in dadka Soomaaliyeed waxa ay qabaan ku kala baxaan wada hadal taasi oo noqon karta dhaxalka horumarka ummadda Soomaaliyeed ee qurbaha ku wada nool Cabdiwali Ibrahim Garyare Universal TV Holland